halkani waa BBC saacada Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo bogga internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo talaado ah 20ka bisha December ee sanadka 2022 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi qodobada idaacada subaxnimo aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha koonfur galbeed oo sheegay in arinta muddo kordhinta ay hore go'aan uga gaareen xildhibaanada maamulkaas haatanna uu soo dhaweynayo hadii ay wax ka bedelayaan go'aankaasi shalay process-kiina u baahan tahay maanta inaan hadii la rabo in iska daa waxaan ka qabanaa male shalayna aniga ma codsanin xildhibaanada keenay maanta hadday keenaan raalligan ka ah sida dastuurku ku qoran tahay la marana maamulka Jubbaland oo sheegay inay wali qasan tahay xaaladda gobolka Gedo isla markaana faragelin badan lagu hayo arrimaheeda maxaa saameynaa oo ka dhashay arintaas iyo adeegga bulshada iyo midnimada ummadda iyo wuxuu dhan bay waxyeeleeyeen arintaan waxaa ka macaasho kaliya nimankii xagjiriyaasha ah oo u qabsaday gobolka si dalban maskaxiyan u qabsaday magaalooyinka ciidamada Admas iyo kuwa Soomaalida ay joogaan mooyaane si dalban u qabsaday xagga cadaaladda iyo bulshada iyo dhaqan ku dhawaad 14 qof oo deegaanka Dooble ugu geeriyooday xanuunka daacuunka kaas oo soo ritay ilaa 600 oo qof Soomaaliya oo wada dadaalo ay ku doonayso inay uga mid noqoto dalalka ku midaysan dalada bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC qodobadaas oo faahfaahsan iyo kuwa kale iyo dabcan wararka ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacadan subaxnimo oo uu soo saaray Ciise Xaaji Cabdille marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC-da saaka waxaan waramaya Mucaawiye Maxamed Buraale mahadsanid Kawthar